مسؤوليين kala duwan dawladda iyo bulshada kale halka fadhida ee ururka ka dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waa habeen farxadeed habeen khudbada ma aha waxaan marka hore si gaar ah ugu mahadcelinayaa bahdii halka naga maaweelisay oo runtii isugu jirtay ayeeyo iyo diyaano iskalaaji iyo dhagaafe iyo tiimkii kale gabdhihii iyo wiilashii halka dhaantada ka ciyaarayay iyo dhammaan intii maanta caawa ka qayb qaadatay maaweelada quruxda badan ee halka lagu soo bandhigay intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadnaqo mas-uuliyiinta ururka ee heer gobol iyo heer degmo ee ka soo kala shaqeeyay howlihii isdaba joogaha ee faraha badnaa ee ka soo bilaabanaysay diiwaangelinta ay ku xigtay xulidda xildhibaanada iyo marxaladda hadda lagu jiro oo ah bambixi iyo kambeynkii ee lagu gaari lahaa hadafkii asaasiga ah ee ahaa inuu ururkan uu guulaysto oo uu ku guulaysto dhammaan degmooyinka gobolka mudug sidoo kalena uu u guulaysto inuu xisbi rasmiya oo puntland iyo soomaaliya leedahay uu noqdo runtii inteennaba waxaan nasiib iyo ayaan u helnay inaan isbeddelkaas taariikhiga qayb ka ahaano oo aan ka mid noqonno sidii aan u gaarsiin lahayn bulshadeenna horumar dhinacyo kala duwan ah bini aadamku dabeecaddiisa iyo dowladuhu iyo degaanaduba waa sida ilmaha yar mar way dhashaan mar way gurguurtaan mar way socdaan mar way ordaan mar way gaboobaan dalkeennu geedi socod buu ku jiraa uu ku barbaarayo runtii puntland sharaf bay u tahay 25 sano 40 sano kadib inay xaqiijinayso qodob adag oo ku adag habnololeedkeenna bulshadeennu burbur baa ku dhacay dowlad curdin oo yar bay ahayd runtii kala irdhow badan baa ka dhacay marka inay la qabsato nidaamka casriga ee caalamka loogu nool yahay waqti bay ka qaadatay dadaalkaas tan iyo maalintii puntland la aasaasay waa lagu jiray waan uga mahadcelinayaa mas-uuliyiintii kala duwanaa ee waqtiga ku bixisay ergadii ugu horreysay ee ku suntatay jaartarkii ugu horreeyey inuu dalkan axsaab badan yeesho ayay ka soo bilaabatay madaxdii iska kala dambeysay marba marxaladda markaa la joogo wixii muhiimkaah baa la qabanayay laakiin waxaan nasiib u yeelanay marxaladdii ilmuhu dhalanayay inaan anagu noqono kuwii habayay oo qabanayay marka marxaladdaas runtii aan nasiibka iyo sharafta u yeelanay dabcan inta umulanaysa iyo inta ilmaha qabanaysa iyo inta habi doonta iyo in badan oo bannaan ka taagan oo fiirsan doonta intaba way jiraan laakiin waxaan rajaynaynaa ilmahaasi inuu ilmo qurux badan oo barbaara inuu noqdo oo ummaddiisa iyo dalkiisa anfaca waxaan rajaynayaa arrintaas inaan isaga mahadceliyo waxaan rabaa si gaar inaan ugu mahadceliyo mas-uuliyiinta ururka ee gobolka mudug heerarkiisa kala duwan waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo runtii shaqadii baaxadda lahayd oo gobolka 7diisa degmaba ay ka soo qabteen waxaan kaloo rabaa inaan uga mahadceliyo runtii bambixii maalinta 9aad ee ururka ku lahaa magaalada gaalkacyo oo laga dhigay wax aan ku tilmaami karo mucjiso taariikhi ah arrintaas waxay nagaysiisay in caalamka iyo Soomaaliba ay ictiraafto dadkan waxay sheeganayeen inay faan ahayn ee dhab ka tahay dadka aan puntland aqoonin way ilduufaan siyaabo khaldan bay u fakeraan dad xoogaa dana kala been u sheega laakiin markay runta gaarto waxay ku cabiraan ficil dadkan waxay cabireen meesha ay ka joogto dimuqraadiyadda iyo sida ay ugu heelan yihiin gaar ahaan gobolka mudug wuxuu si gaara u qeexay abaalgudka ururka kaah oo ahaa ururkii arrintan ay boholyooga u qabeen aasaaska u ahaa runtii ururka kaah taariikh buu ku yeelan doonaa guud ahaan puntland soomaaliya gaar ahaan gobolka mudug taariikhdaas nasiib halkaa u yeelatay cid kastoo isku dayda wixii ka dhacay garoonka cawaale in la sameeyo way adagkaan doontaa soomaaliya saan filaya marxaladaha dhowdhow waxay beenisay inay gaalkacyo ammaan ahayn waxay beenisay inay gaalkacyo wacyi lahayn waxay beenisay gaalkacyo inay dimuqraadiyadda aysan rabin
waxay kaloo beenisay gaalkacyo inaysan ka ahayn guushaas taariikhiga ah dadkii dhaliyey ayay ahayd munaasabada tan inaan ugu mahadnaqno dhammaanteen isugu mahadnaqno dadaalkaas quruxda badan ee la galay runtii geedigii waa socdaa maalinta 25 waxaan rajaynayaa dhammaan deegaanada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Mudug waxaan u rajaynaynaa inay noqoto maalin taariikhi ah oo guul ballaaran oo ururkan ka soo hoyo dimuqraadiyadduna ay guulaysato